dowladda deegaanka Soomaalidu waa deegaan leh kheyraad dabiici ah wabiyo burqamaya sanadkoo idil iyo dhul ballaaran oo dihina deegaanka Soomaalidu waa deegaan ku habboon noocyada kala duwan ee wax soo saarka dalagga beeraha halka bulshada deegaanka ku nooli ay badankoodu yihiin bulsho xoolo dhaqato iyo xoolo dhaqata beeraley ah sanadku markuu ahaa 1993 January tirsiga reer galbeedka ayaa magaalada Diridhaba lagu yagleelay dowladda deegaanka Soomaalida iyadoo la dhisay saddexdii hay'adood ee dowladdu ka koobnayd sharci dejinta sharci fulinta iyo hay'adda garsoorka halka deegaanku yeeshay calan u gaar ah golo baarlamaan iyo sidoo kale madaxweyne rasmi ah waxaana kalfadhigii koobaad ee golaha xildhibaanadu ka qabsoomay magaaladaasi Diridhaba halka golaha fulinta ee dowladdeegaanka Soomaalidu uu ansixiyay bayaanka xuska maalinta deegaanka Soomaalida kaasoo loo asteeyay in sanad walba la xuso xuska maalinta aasaaska deegaanka Soomaalida oo ku beegan 23 January haddaba waxaan wax ka weydiinay dhalinyarada fanaaniinta haweenka iyo bulshada magaalada Jigjiga ahmiyadda uu leeyahay xuskani iyo qaabka isugu diyaariyeen maalinta aasaaska deegaankooda xuska deegaankeenu runtii ahmiyadda uu leeyahay wax af lagu soo koobi kara ama qoraal midna ma aha sanado dhan hadii laga hadlo lama soo koobi karo ahmiyadda uu leeyahay sababta ay tahay ummad waliba oo meel joogto wax astaan oo ay xustay leedahay taasi waxay cadeynaysaa dimuqraadiyadda Ethiopia ama dalkeenan aan ku noolahay meeshii ugu dambeysay mid gaadhay inay tahay maradu deegaan walba oo xuskiisa qabsan karo maanta anagu aan xusayno calankeeni in badan baan xusi jiray taariikh iyo xus maxay ahayd meel kale laga soo maarta sida wixii loo oran jiray gumbood haya oo kaleeta waad garanaysaa inaan sanad walba xusi jiray ummad gaar ah wadatoona soo gaarsiisay laakiin kan waa anaga gumbood hayadeen weeyaa waa kii khaaska noo ahaa anaga si khaasa u leh hadda ka hor waxaan u malayn in maarta aan mar xusnay markii labaad weeyo waxaan rajaynayaa in badan inuu socdo ahmiyadda uu u leeyahay shacabka dawlad deegaanka Soomaalida oo calankoodii iyo maalintoodii xusan haya weey oo waliba maalinta Ethiopia oo dhan isugu imaanayso weey hadda waad arkaysay anigu meeshan team dhaqana ayaan halkan tababar ugu haynay diyaar garow baan ku jiray xuskan aan u diyaar garoobaynay horta haweenka deegaanka Soomaalidu waa laf dhabartii xuskuna waa xiski deegaanka marka waxaan leeyahay halaga warhayo aadna loo mogaado haweenka deegaanku waxay faa'iido badan ka heleen waxaan leenahay xildhibaano wasiiro maxay ahayd waxyaalo badan bay haweenka faa'iido badan bay u leedahay oo maxay ahayd meelo hadda ka hor haysanin maxay ahayd hadda ku leenahay marka waxay ka haween ahaan waxay noo leedahay faa'iido badan haddii aan hooyooyin jirin xusku intaas oo sano u soo jiri kulay hooyooyin baa lama soo gaadhin haddayna hooyo jirin ummadda Soomaaliyeed ee deegaanka ku dhaqan calanku ka wada dhaxeeya oo cid gooni u leena ma jirto Soomaaliya oo dhan baa iskale waa calanka Soomaaliya la aamino calankeena iyo dawladnimadkeenana si sharaf la aan u taageerna haddaynu nahay shacabka deegaanka Soomaalida xukuumaddaas dhan baynu nahay hadda nabadgelyadan iyo ilaalinaya ciidankeeni baa ilaalinaya booliskii baa ilaalinaya maleesiyadii baa ilaalinaya waa wax Ilaahay lagu mahadiyo runtii hadda deegaan ismaamula horumar leh laamile waxbarasho leh aqoon leh jaamacada leh hore u socda Ethiopia kamid noqday baan iyaga nahay dad jira mayna ahayn midnimana way heleen nolosha inkiistaanki iyo dadkoos noqday iyo walaaltinimadii oo la wala fahmay yaa la helay waxa weeyaan calanka oo ummaddu ay ku midowday afka oo ay ku midowday diinta oo ay ku midowday midnimo guud oo ay muujiyeen inkastoo kilalku uu daalaa dhac badan la kulmay dib u dhac badan oo la kulmay waxa kamid ah ciidan aan kala xigta lahayn maamul aan kala xigta lahayn
calan aan kala xigto lahayn oo midaynaya yaan leenahay dee intaa keliya aad ninkii qiimayn waaya isaga u tallaa haddee deegaanka kolkii hore maanaan joogin dadkii waanu ka qaxnay 77kii anoo ilmo yar baan ka qaxay colaaddii 77kii markay dhacday soomaaliyaan tagnay ilaahay baana dalka annaga hooye nagu soo celiyey kolkii maamulkii iyo dhergigii dhacay ee ilaahay isbeddel keenay ee calan gooni aynu yeelannay yaan dalka ku soo noqonnay dee nolol ma jirin intii hadda calankan ka horreysay nolol jirtay ma jirin koob iyo tobanka gobol ee deegaankeena uu ka kooban yahay 9 iyo dhowrka degmo 5 degmo ee deegaankeena uu ka kooban yahay iyo waliba qurba joogta deegaankeena u dhalatay meeshay doonaanba ha ku noolaadaan waxaan farayaa inay maalintooda ay weyneeyaan oo ay xusaan isla markaana ay si fiican u soo dhaweeyaan meel ay joogaan kuwa Mareykan jooga Mareykan ay ka xusaan Yurub kuwa jooga Yurub ay ka xusaan Kenya kuwa jooga deegaankan u dhashay halka ay ka xusaan meel walba maanta bilaanku xorriyadiisu ku haystaa halka maalintooda ay ka xusaan annaguna si ballaaran halka naga xusannaa ka deegaan ahaan ayaguna halka ay jiibta iyo jaanta iyo cagta halka nagala xajiyaan oo halka ka xusaan waa maalinteeni waa calankeenni waa deegaankeenna maalintii la asaasay ina xus aad u weyn la dhigo laga soo wada qayb galo laga soo wada muuqdo waa xus aad u weyn weeye maalin aad u qiimo badan way soo socotaa insha Allah marka waxaan leeyahay la moogaan dhamaantiin dhalinyarada qurba joogta hooyooyinka cid kasto oo ku sugan iyo cid kasto ka maqan bayaan la moogaan baan leeyahay insha Allah taala deegaanka calankan calan dad gaar ah ilayeen maaha calanka dawladda deegaanka Soomaalida horta dawladda deegaanka Soomaalida markii lagu leeyahay anu Soomaali Maxamed reer aanan ku dhax arag ma jirto waa meesha kaliya dadka af Soomaaliga ku hadla ay wada degaan midayn hayo weeye sababtoo tahay waayo maba jirin xisbi iyo tartan iyo aqoon iyo muhiimad aan leenahay oo wax soo saara ama seenoo hami horumareed mayna lahayn ismaamul mayna lahayn ismaamul bay ka heshay horumar bay ka heshay maamul madax bannaan oo xorriyadiisa haystay ka heshay jiritaan bay ka heshay Ethiopian xuquuqdeena inaan helo horeen u sii gallo baan ina farayaa dhalinyarada doorkooda inay qaataan weeye baan aniga shakhsiyaanad san aaminsanahay ka dhalinyar ahaan anoo afka dhalinyarada ku hadlaya dhalinyarada waa inay doorkooda ka soo baxaan waa inay dawladda garab istaagaan waa inay shacab iyo dawladba la isgarab istaagaan marka hadee dhalinyarada doorkooda waa inay ka soo baxaan waa inay shaqeeyaan waa xuskani waa kii namidayn lahaa calanka ciidda ciidanka dadka dalka intaba daniyaheenna gaarka inaynu xajino Ethiopian aan la jaan qaadno waa mid oo laga maarmaan kilalka waxaan ku bogaadinayaa horumar ay gaadheen maanta way xusayaan 32 guuladii kilalka Soomaaliya waan ku bogaadinaynaa ku dhalaabsadaan madaxweynenu leenahay shaqaalihii baynu leenahay war dhulka xitaa la xaaqaya dumarkeena xaaqaya maad arag calankeena sawiye mushaarka laga siinayo ay nolosha taala runtii calanka sabab u ah horumar baa yimid calankana sabab u ah taa midaasan taaleehay xukuumadana waxaan leeyahay inay sii dadaashaan rabnaa oo dadkii maaragtay wax badan ay u qabato wacyi gelin buu dadku u baahan yahay dhalinyaradu inay dalkeedana horta aaminto oo waxaan tahriibka iyo qurunkaana la iska daayo dalka waxbarasho ganacsi baa yaalla wixii ganacsanaya wixii dawladdu shaqayn intaba in la yeeshaa la doonayaa marka waxaan leeyahay xisbigan hadda jooga iyo bulshada oo ismidaysto oo isu qabsaday hore u socdaan xukuumadda horta midda koobaad bal yahay dad ugu dhaqan gobolka ee nabadgelyada caamka haysta ee horumarka guud helay ee ilaahay soo gaarsiiyay meeqaanka inay kor u sii qaadaan ayaan horta u diray admaha koobaad oo bal yahay qaran joogta iyo qurba joogta iyo dhammaan dadka ku nool yaa meel kasta ku kala sugan yihiin hambal yaan leeyahay qurba joogta waxaan leeyahay horta dalkiina aamina waxna ka dhisa dalkiina maal gashada dalkeena nabadgelyo weey maalgashi buu u baahan yahay in la iskaashado oo maalgashi yimaadaan wax lagu noqon karaa dadka deegaanka sii deganaana maalgashiyaasha ha laga faa'iideysto wadankan waxa laga soo saarto wadanka khayraadkiisa iyo noloshiisa buuxda laakiin iska fadhi nolol kuma iman hayso calanka iyo dawladana ha laga faa'iideysto